koox Koongoliis ah ama u dhalatay dalka Kongo ayaa waxay ka hor mudaharaadeen safaaradaha ay ku leeyihiin Midowga Yurub magaalada Pretoria ee magaalo xarumeedka dalka Koonfur Afrika. Kooxdan ayaa la sheegayaa inay ahaayeen dad aad u abaabulan isla markaana dacwo ka ahaaba Midowga Yurub maadaama isbuucyada la soo dhaafay dagaal xooggan ay ka dhacayeen dalkaasi oo ay u dhaxeeyay dowladda iyo waliba fallaagooyinka dalkaasi ka dagaalamo. Kooxdan ayaa Midowga Yurub u sheegay iyagoo warbaahinta u marinayo in 30kii sano la soo dhaafay ay hadda ogaadeen waxyaabaha dhibayay dalka Kongo inay ahaayeen Midowga Yurub iyo waliba reer galbeedka. hadalkooda ayaa u muuqday in hadda uu kaliya ayba ogaadeenba wax dalkooda dhibayo maadaama ay markii hore isku haysteen in ay is haystaan. Waa mid ka mid ah dalalka ugu taajirsan ama ugu soo wax soo saarka badan marka dhanka macdanta iyo mineralska laga eego guud ahaan gobolka gaar ahaan bartamaha Afrika. Hadaladoodina waxaa ka mid ah As we can see just outside, there's just over 1,000 Congolese nationals who are now here outside the European Union, where the delegation is, of course, in Pretoria, the headquarters in Pretoria, and they have submitted a memorandum, but we just want to get a sense as to what will be the next step forward. Thank you very much, Dr. Thomas Mulala, for speaking to us on ENCA. You've handed over the memorandum right now to some of the representatives here. What are you expecting from the delegation of the European Union here? We have given them 2 weeks. 2 weeks only. If they don't respond to our 5 demands, we will not be responsible of whatever will happen to the Rwandese embassy. They need to stop what they've been doing for 30 years. We have lost women and children, and because of European Union, that was Koongoliiska ma jirta cid u soo baxday oo dhageysatay ama safaaradaha xubno ka tirsan oo hadalkooda dhageystay isla markaana dalabaadkooda ama waxyaabaha ay codsanayaan ka dhageystaba balse wuxuu ahaa mudaharaad aad u weyn oo dowladda South Africa nafsadeanteed wax ka soo aabushay isla markaana ay kawaarida booliska ilaalinayeen. inta badan Kongo ayaa waxay ka mid tahay qaxootiga ugu badan ee dalka Koonfur Afrika ku nool isla markaana magangaliyada ka helo oo ayagu sharciga waa la siiyaa oo qaxooti ayaa loo diiwaan geliyaa. haddana South Africa ayaa inta badan waxay tahay dalalka ugu horeeya caawiyo dalka Kongo isla markaana suuragal ka dhiga sidii dalkooda ay ugu laaban lahaayeen ama dalkooda ay xasiloon lahaayeen. South Africa ayaa lagu sheegaa 10kii sano oo u dambeysay in ciidamadeeda ay ku caawinaysay dalka Kongo si nabad loo helo balse nabadii ayaa mari dhali weysay oo hadda waxay u muuqataa Kongo mar kale inay dagaal galayso. warbaahinta Somali Positive, Pretoria, South Africa.